السلام عليكم بعد حلال بويز وأنت أنا برنامج كي فراي فلوجينا ما أنتوا حكساب سنيا حفلة قليل جبل وفون فور وفعدي كوي تبنات هذا لو صعد حفلة خرابو على يسلا صعد إن شاء الرحمن إنها على سكون هاي let's go هوشين وي let's go معدا SIU inkastoo maalmuhu ilaahay magaca qura ay ku simeeyeen maalmuhu baa maalin lagu xasuustaa maalmaha taariikhiga dalkeena haddaan dib u milicsano waxaa ka mid ah 15kii bishii May sanadii 1943 waxaa dibadda loo taagay ururkii gobonimada SYL ee 13kii dhalinyarada soo gaarsiiyay xorriyadda maanta aynu ku naaloonayno miyaysan aqoonin in loo saabiyo haddaan aadayno taariikhda waa maguurto waqtiguna waa haya jiilba jiil baa ka dhaxla taariikhaha dalka markale haddaan dib u milicsano waxaa ka mid ah 26kii bishii Juun sanadii 1960kiina waxaa gumaystay Ingiriiska ka xoroobay gobolada waqooyi oo ka koobnaa waqooyi galbeed iyo togdheer iyana maanta oo kale maxaa leeyihiin karod oo laba sac jiilkii hore haddii waqtigu ay soo qaateen iyo waayihii quruxda badnaa iyo halgamayaashii dalka waxaan xasuusinayaa kuwa maanta jooga oo la rabo in ay berito ay noqdaan hal abuurkii dalka hogaankii dalka waxaa idinkugu jira xildhibaanadii beri wasiiradii beri iyo weliba madaxdii dalka waxaa biyaa hore idinkugu daaliyin 1 bisha 8aad 2019 subax khamiisa yay maalin u tahay waxay maalin u tahay mas-uuliyiinta joogooda aynu ku faahno mudnaan gaar aynu siino marti sharaf waalidiin ehliga saxaab gaar ahaan ardayda ka qalin bedelanaysa iskuulka tayada iyo tacliinta looga haray ee idinku aad wada doorateen Xalane Primary and Secondary School hal-abuuraha hore ay yidhi qofaan tacliin barantuunku wuxuu ku xambaariyo tuugsi kama baxaye aantiisana tacliinta taala Xalane Primary and Secondary School kugu daalin hadalka dhulkiisii gabagabadiisii gunaanadkiisaba wax walbaba daafurto intaan la gabagabeelin la gunaanadin bilow iyo hordhac waxaa looga dhigaa kalaamkaa leh isagaana ugu qaybka badan waxaan u yeelayaa wiilka lagu magacaabo qaariga qur-aan akhriska ku wanaagsan ehelkiisi tacliim iyo tayo ay ku abaabiyeen waxaan u yeelayaa maxamed cabdullaahi ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. وأما أكبر مسألة الله سبحانه وتعالى لزوج الرجيم وقت كان كارجاء وما أو إيمانين أو ما حيرت أملانا على بني سواجي سوى الرجيم يسيا أيامنا كل جاء وما هتعلمنا. mar labaad waxaan u wacdinaynaa oo soo dhawaada leenahay marti sharafta ardada macallimiinta waliyaasha kaalmaanada ee la soo ajiibay ee ka soo shaqeeyay xafladan quruxda badan ee ugu talagalnay inaan ku soo wajahno ardada ka kala jibinaysa waxaan bedelanaysa iskuulka Xalane marti sharaf soo dhawaada waxaan maanta u taaganahay inaan halkan ku guddoonsiino shahaadooyinkoodii ardaydii intaas sano juhdiga soo gelinayay waxbarashada waqtiga dheer soo qaadatay kuwaasoo geliyay dadaal aad u fara badan way ku mahadsan yihiin waxaan sidoo kale mahaddaas iskale waalidkii ardadaasi ku garab taagnaa kool iyo hiiba inta ay wadeen waxbarashadaasi waalidow la-aantaada ma aysan socdeen ama ardaygaas ma uusan gaarin maanta hadafka uu joogo waad ku mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba sidoo kalena waxaa ku mahadsan ardaydii iyaguna isku howlay in ay waxbarashadaasi ujeedka ay leeyihiin maanta ay ka gaaraan arday hambalyo mar labaad hambalyo waa idinku hambalaynayaa ma ahan maanta heerka aad taagan tahay waxaad ka gudubtay akademiyadii islihin oo waxaad dhamaysatay waxbarashadii oo dhan aad dhamaystaa islihin waxaad ka soo gudubtay heerkii ahaa ee hoose iyo dhexe iyo saraad ka soo baxaysa waxaad markaan usoo gudbaysaa qeyb akademiyad oo ka saraysa ayna ka badan maxaa ka dhexaad badan kuwa hadda adiga aa soo martay kuna sugaayaan muddo dheer oo raf ah ayna u baahan tahay inaad u qaadato sahay qarabta
سعيد أيونا والدلالة أدماغنا أصول ده شيء حالنا تقدر تجلسوا أشياء كتير دوتو مثل لو جبارين على طول waxaan idin leeyahay markaa beye soo dhawaada waa hambalyo waxaan ku faraxsannahay farxadda aad idinka maanta haysataan inaan idinla wadaagno oo kala qayb qaadano anagoo idina garab taagan mar walbana beyliyaho inaan idinku taageerno waxbarashada idinku saacidno idinku maxaan radaa dhiirigelinno ayaan mar walbana idinku garab taagannahay insha allahu tacaala waxbayaan hadalkeena ku bareegin waqtiga waa arag iyo kulaalaya iyo dad badan oo isugu yimid sharaf inay kelmadooda halkaas ka dhigtaan waxaan idin leeyahay hambalyo mar labaad hambalyo soo dhawaada haddaysan habluhu jiri lahayn dunida mar hore la laabi lahay sidaas darteed had iyo jeer waxaan jeclahay inaan soo istaajiyo halkan hal iyo laba ay ii dhahaan oo ii sheegaan inkastoo dumarku xishoodku uu ku wanaagsan yahay ilaahna uu ku beeray haddana mar walba ma soo bareejeyn karaan sidii wiilashu ku hadlaan oo kale dumarku inay u badnaadaan halkan ku hadlaan ma dhici karto laakiin waxaan jeclahay hooyo soomaaliyeed waalidiinta ardayda qalinjibinaysa mid ka mid a dhashay maanta ardaydaas dhashay joogta xafladda nagala soo qeyb gashay ayaan rabaa shucuurteeda iyo dareenkeeda inay muujiso aan xoog ugu saabino maama ubax maxamed بسم الله halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan maamulka macallimiinta iskuulka dhammaan matasharafka waalidiinta ardayda quruxda badan dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib dhammaan ardayda quruxda badan oo u hambalyanayaa kalaas ahaan dufcada kooda tobanaad sanadkan ka qalin jibinaysa iskuulka maadaama aan ka mid ahay waalidiinta oo ka qalin jibinaysa iskuulka xalaan mid ka mid ah oo ah sadcaal macalin ibraahim maadaama dad badan iga dambeeyaan waxaan rajaynayaa dhammaantiin waa idin hambalyeena maamulka macallimiinta aad iyo aad ayaa mahadsan tihiin waalidiinta quruxda badan ayna sidoo kale mutasharafka leh dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu مسك بحدويا مدحجاني ويا شينا وأمي حتى أقول بشونا لا أخي ما أمي نكسر وأمي حتى أقول بشونا لا أخي ما أمي نكسر واحد وحنوية يا سيد علي إبراهيم حسن صاحب السوق ومن الزاوية وحيكون وطن وعليه وعبيه وعلى عملين بدرسية سوالات الزهاية وحبيتا بسوق البشر هدية وعلى بدرسية شهاديز بسوق سعد إلى أبو الملكة